waxaan u doorannay inaynu mowduucan ka hadallo iyadoo wakhtigan dambe ay badan tahay wax ka sheegga nebiga calayhi salaatu wasalaam dhulalka reer galbeedka iyadoo marmarsiiya laga dhigtay xorriyat alqowl u aragnana inaanay wax saxa ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan u aragnaa inuu yahay acdamu shakhsiya fii taariikhi albashariya aadam intuu dhalay calayhi salaam ilaa qiyaamaha laga gaadhayo inuu yahay acdam insaan dhulkan ku kor socda sidaa awgeed waxaan u arkayaa inay tahay dadka muslimiinta ah ee siiba yurub jooga inay ka mid tahay waxyaabaha looga fadhiyo inay nebigooda calayhi salaatu wasalaam difaacaan oo qaabka u roonay loo difaacayana ay ka mid tahay in weynidiisa la soo bandhigoo la muujiyo waxaan rabaa inaan tilmaamno cayda nebi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig kuwii wax ka sheegayna waa la xidha nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl oo maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee wax geysta malafkiisaa la baadhaayo maalinuu dhakhtar ma tegey dad buu leeyahay haa wuu waallaa beri buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terrorist ahaa hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma eegto idan waa la jiifiyaana bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbeddeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaa dee ma doodi karaysidee maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasay u rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam marka aynu tilmaamno qur-aanka ku soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ammaantiisa ayaa ammaan ugu filan inta aan qur-aanka rumaysnayni ee rumaysan maqaayiis kaloo bini aadamku wax ku qiimeeyaa buu leeyey inaynu u tilmaamno bimaqaayiisikum buu nebi maxamed yahay ka mudan marka lagu eego maqaayista bini aadamka amaa haddii loo baahan yahay nebi maxamed si dhaba loo qadariyo waxa ku filan qur-aan iyo xadiis wixii ku soo arooray marka aan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa acdam insaan qur'aanka iyo sunnadu way tilmaamayaan waxgaradka bini aadamkiina wuu tilmaamaya waxa ugu filan nebi maxamed markaa maamuus calayhi salaatu wasalaam in ilaahay tilmaamaya mala'i laclaa inay isaga ku salliyaan ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima alle iyo malaa'igtiisu baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waxay ku sallinayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay salaadiisu waa naxariistiisii malaa'igtuna waa duco iyo ammaan mu'miniintana waxaa la leeyahay idinna sidoo kale la kaalaya idan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cirka saruu ka maamuusan yahay dhulka korkiisana wuu ka maamuusan yahay waana qofka ilaahay doortay ee u doortay inuu rasuul noqdo waxa aan rabaa
dadka aynu la noolay inaynu la wadaagno nebi maxamed sharaftidiisa iyo mudnaantiisa bini aadamku majaalaad insaaniya baa jira majaalaad bini aadamka lagu maamuuso ha noqoto naxariistiisa ha noqoto geesinimadiisa ha noqoto sabirkiisa ha noqoto dulqaadkiisa ha noqoto deeq iyo gacan furaantiisa ha noqoto ballanka iyo oofinteeda ha noqoto cafwiga iyo u dhaafka uu dadka u dhaafo uu xugaystay iyagu maanta waxay sheegayaan waa irhaabi laakiin taariikhdu waxay ka markhaati kacday weligii cid wax gaadhsiisay inaanu kaba argoosanin iyadoo la isku dayay wax walba si kasta in loo dilo bini aadam wax kasta oo wax ku qiimeeya baynu leenahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hormuud buu ku yihi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu odhan karnaa waa rajul fii muqaabili jamiici الrijaal waa qof hormood u ah bashariyadoo dhan oo la hordhigi karo bini aadamka weliba intaa waxaynu ku daraynaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisu wax maqani ma jiraan waxa qoran wuxuu cuni jiray wuxuu xidhan jiray musqusha siduu u geli jiray musqusha markuu gelaya labada adinkuu horraysiin jiray musqusha markuu ku jiro gacantuu isticmaali jiray ee wax iskaga maydhi jiray yacni qof noloshiisa wax qarsoonay aanay ku jirin waxa qoran kabihiisu intay leekaayeen cidhibta iyo xagga hore midkay u buuraayeen indhal inay lahaayeen iyo inaanay lahayn kabtu inay dhogor lahayd iyo inaanay dhogor lahayn saddexda qaybooda kabtu u qaybsanto dhexda iyo xagga hore iyo xagga dambe mid waliba inta ay leegtay nebi moxamed way qorantay calayhi salaatu wasalaam waxa qoran wuxuu maro qaatay midabkay lahaayeen waxa qoran wuxuu cunno cunay waxa qoran wuxuu meel istaagay waxa qoran wuxuu dagaal galay waxa qoran wuxuu qof bini aadama la hadlay waxa qoran wuxuu cibaadaystay waxa qoran wuxuu ummad hoggaamiyey waxa qoran noloshiisa oo dhan baa makshuufa dabeetana waxaa la leeyahay waa taa taariikhdii nebi maxamede bal meel ceeb le ka soo saara qof aan taariikhdiisa waxbaba qarsoonayn maanta iclaamka buuqa wuxuu ina leeyahay islaamku waa tararka dunida socanka maaha aqoon-yahankoodii taariikhda baadhayna wuxuu leeyahay waaritaanka islaamku wuxuu amal u yahay wuxuu rajo u yahay buu tilmaamaya bini aadamnimada maxay tilmaamaysaa qadiyaddani waxay tilmaamaysaa dadka wax qiimeeyey ee ama micyaar caskariya ku qiimeeyey ama micyaar psychologiga ku qiimeeyey ama micyaar taariikhiya ku qiimeeyey ama backgrounds aqoomeed oo kala gedisnaa lahaa oo ka warramay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaantood waxay tilmaamayaan inuu nebi moxamed mudnaa ama kuwa ugu mudan dunida inuu ahaa ama isagu inuu yahay kuwa mudanka u sii mudan cumuuman bini aadamku wuxuu yidhaahdaa saddex shay baa wax lagu qiimeeyaa ama alcadama weynida bay leeyihin qof leeyahay saddex shay baa lagu qiimayn karaa kow biاطibaaci wاlakhlaaqi wاlmazaaya shakhsiya waxaa lagu qiimayn karaa bay leeyihin sifaadka bini aadamnimo ee waa geesi waa deeqsi waa caynka yacni sifaadka qofka bini aadamka insaaniyadu ay leedahay waa lagu qiimayn karaa bay yidhaahdaan waxaa kaloo bini aadamka lagu qiimeeyaa bay yidhaahdaan injaasaadka alacmaal alcadiima waxqabadka ummad buu badbaadiyey waxaasuu qabtay waxaasuu keenay waxqabadkiisa waa lagu qiimayn karaa waxa saddexaad ee bini aadamka lagu qiimeeyaa waxa weeyaan bay yidhahdeen raadka uu bini aadamnimada kaga tegey intee qarni buu raadeeyey ma bulshadii uu la noolaa iyo qarnigii uu noolaayo qura qof raadayn kule buu ahaa mise taariikhda bini aadamka ee soo jireenka ah qof ku leh raadayn waa aahaar waa saddex qaybood oo wax loo qiimayn kara bay leeyihin in dhaqanka iyo akhlaaqda iyo miisaadka insaaniga lagu qiimeeyo in waxqabadka iyo acmaasha ka soo fushay lagu qiimeeyo iyo in raadku bini aadamnimada kaga tegey lagu qiimeeyo saddexda kaad ku qiimaysa bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one haddii akhlaaq iyo dhaqan la rabo bay leeyihin waa qof taariikhdu ay tilmaamayso inuu mutawaadic ahaa oo geesi ahaa dagaalyahan ahaa
wax bixin jiray dulqaad badnaa sabir badnaa waxa sifaat qof bini aadama lagu tilmaamoo dhan saadiq ahaa iyo runsheeg badnaa ballan oofin badnaa waxa sifaat qof bini aadama lagu maamuusa bay leeyihin waa looga markhaati inuu lahaa hadday tahay raadayn waxay leeyihin caalamka ilaa maantay taallaa raadayntiisii oo wakhtigu nebi moxamed yimi calayhi salaatu wasalaam wakhti aan laa xuquuqulinsaan walaa xuquuqulbini aadam walaa wax jira aanay jirin bay ahayd aahaartu ka tegey bay leeyihin waa ta abuurtay xadaaradan dee islaamigaa dhammaanteed iyo dadka muslimiin ee dunida soo jiroo dhan sida awgeed ayi miqyaas wax lagu qiimeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one nin yahuudiya oo dadka badhcunsurinimo ku sheegayaan oo maraykan u dhashay oo buug qoraya oo buugga oryanisku uu u qoraya wax ka iibinaya aanay carab ahayn ay yihiin dadka afka ingiriisiga ku hadla ayaa buug qoray yacni waa nimaan xidhiidh ka dhaxaynin isagiiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa buug qoray buugga uu qorayo wuxuu leeyahay waxaan ka warramayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan markaan bashariyadoo dhan eega buu leeyahay taariikhdii reer nebi aadam oo dhan markaan eego qofka ugu mudan ee ugu weyn ee raad lihi waa nebi moxamed buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma irhaabi baa ugu raad badnaan lahaa dunida intuu soo maro mise qof la caayo la yidhaahdo waa dumar buu jecelaya ama caynkan buu sameeya ama kan buu samaynaya ama caynkan samayn kari lahaa may waxa weeyaan innagaa gabnay taariikhdii islaamiga ahayd markaynu innagu soo bandhigi weynay iyagu inoo soo bandhigeen khuraafaadkoodii alfonso de lamartine waa nin politician siyaasi buu ahaa oo second republickii faransiiska raggii qaybta weyn ka qaatay buu ka mid ahaa gabyaana wuu ahaa nebi moxamed wuxuu leeyahay taariikhda bini aadamka haddaan saddexdaa shay ku qiimeeyo qof himiladiisu weyn tahay waxa agtiisa yaallaana ay yar yihiine awoodee u haysta midhaha uu dhaliyeyna uu midho caalamiyo aad u ballaadhan yahay markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay buu leeyahay qofka ugu mudan bini aadamkaee la tilmaami karo markaan bashariyadoo dhan eega buu leeyahay taariikhdii reer nebi aadam oo dhan markaan eego qofka ugu mudan ee ugu weyn ee raad lihi waa nebi moxamed buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma irhaabi baa ugu raad badnaan lahaa dunida intuu soo maro mise qof la caayo la yidhaahdo waa dumar buu jecelaya ama caynkan buu sameeya ama kan buu samaynaya ama caynkan samayn kari lahaa may waxa weeyaan innagaa gabnay taariikhdii islaamiga ahayd markaynu innagu soo bandhigi weynay iyagu inoo soo bandhigeen khuraafaadkoodii wuxuu leeyahay mustashriqa swidishka ahi umaynan cadaalad samaynin nebi moxamed haddaynu inkirno buu yidhi wixii uu sifaad waaweyn lahaa haddaynu inkirno iyo tilmaamaha lagu dooran karo bini aadame uu lahaa buu leeyahy haddaynu inkirno waxay ka markhaati tahay buu leeyahy inaynan cadaalad samaynin waayo buu yidhi nebi moxamed dagaal nololeed buu galay buu leeyahay uu la galay jahliga iyo hamajinnimada waanu ku adkaystay mabdi'iisa ilaa iyo uu keenay buu leeyahay shareeco akmalu sharaa'ica waa shareecada maanta ragga badhay rabaan inay yidhaahdaan waa shareeco mutawaxisha ayuu ninkaa swidishkii wuxuu leeyahay shareecadiisu waxa weeyaan buu leeyahay shareeco la dhigo ta ugu fiican ama ugu dhammaystiran dadkii waaweynaaye taariikhdu sheegtay oo dhanna wuu ka sarreeya gootee baa wuxuu leeyahay haddaynu reer yurub nahay buu leeyahay wax allaaliya waxaynu afkaar hayno oo dhammi ma gaadhaysa buu leeyahay tuu maxamed gaadhay waa gootee baa wuxuu isbarbardhigayaa aaraad iyo afkaarta reer yurubka iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dunida keenuu isdhinac dhigaya deetana wuxuu leeyahay haddaynu reer galbeed nahay mafaahiimteennoo dhammi ma gaadhayso ilaa maa wasala ilayhi moxamed wa sawfa laa yataqadam calayhi axadun buu leeyahy mustaqbalkana ma filayo cid dhaafi doonta inay jiri doonta buu leeyahy waa gooteegii jarmal taariikhdoo dhan baan waxaan baadhay buu yidhi bini aadamka qof aan tusaale uga dhigo waxaan helay buu yidhi nebi moxamed inuu noqday bini aadamka qofkii aan tusaale uga dhigi lahaa sidaa awgeed buu yidhi waxaa waajiba inuu xaqu muuqdo oo korreeyo sidii uu moxamed u korreeyey
ee uu dunida kelimatu tawxiid ugu kor yeelay buu leeyahay waa gabyaagii riwaayiga ahaa ee faransiis ee jarmal ee macruufka ah taqaaniin ayuha alaxiba waxaa idinku filan soo ma ogidin united nationku inay leeyihiin kulliyad ku taalla talyaaniga toronto bay ku taalla oo kulliyo leadershipka lagu dhigo oo leadershipka yacni united nationkeeda iyo dadka ka shaqeeya leadershipkooda sida ay loo hoggaamiyo ma filaysaa leadershipka ugu weyne loo dhigaa inuu yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo professor ingiriisi dhigo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam professorrada ingiriiska ugu caansan ee leadership ka warrama buug buu leeyahay la yidhaahdo qiyaadatu moxamed the leadership of moxamed uu leeyahay kaasaa laga dhigaa uu dhigaa united nationka qaadadeeda si loogu tareengareeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii idan marka ay noqoto cilmi iyo jaamacad iyo taariikh iyo bini aadam waxbaadha iyo dad insaaninimada bini aadamnimada ay qiimo u samaynayso nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa hormoodka bini aadamka dadka aan tilmaamaya waa dad background kala gedisan leh qaarkood wadaaddo diimeed ay yihiin qaarkood taariikhyahanna ay yihiin qaarkood ay jananno iyo casaakir yihiin qaarkood ay usaatida jaamacadeed yihiin qaarkood ay physics iyo sciences ku shaqo leeyihiin waa dad background kala gedisan leh laakiin isku dayay inay ka warramaan bini aadamka yaa uu noqon karo hormood yaa magac iyo maamuus yeelan kara encyclopediyahan ingiriiska daa'irat almacaarif albaraytaaniya maadada muxamed haddaad baadho waxay leeyihiin muxamed ibnu cabdillaah mu'asis addiin alislaamiyi wulida fii maka maxamed oo ina cabdilaahiyo ah bay yidhahdeen diinta islaamka kii aasaasay waa iyagu say u dhigayaan wuxuu ku dhashay magaalada maka tacbiirka ku xigaa waa maxay وقليلون هم الرجال الذين أحدثوا في البشرية الأثر العميق الدائم الذي أحدثه محمد بيداده encyclopediyaha ingiriisku wuxuu leeyahay waxa yar bini aadamka dhexdiisa in lagu arko raadku nebi moxamed nolosha ku sameeyey wax ku sameeyey bay leeyihin waa their encyclopedia ayaa saa tandhigaya thomas carlinle wuxuu leeyahay waa shihaabun qad adaa dunya waa holac ama iftiin dunidoo dhan ifiyey buu ku tilmaamaya ayuha alaxiba hadday noqoto weedhaha bini aadam yidhi inaan soo naqliyaa aad bay u tiro badan tahay laakiin waxaan rabaa inaan iska daayo weedhaha bini aadamka oo aan idiin sheego waxa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay nebi moxamed waa rasuulkii ilaahay rasuul macnaheeduna waxa weeyaan waa ku ilaahay intuu doortay basharka uu soo diray nebi moxamed wuxuu gaar ku yahay rususha kale waa la iska soo dabadiri jiray rasuul walbana waxaa loo soo diri jiray qoom gaara nebi moxamed kow waxaa la yidhi rasuul dambe oo laga soo dabadirayaa ma jiro diintiisu mana sakhmayso laba qoom gaara looma soo dirine bini aadam oo dhan baa loo soo diray saa daraaddeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya inuu maa dalla saaxibukum wamaa qawa hadday tahay noloshiiyo ahdaafta kama lumin hadday caqliga iyo ra'yiga tahay ma lumin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maa zaaqa albasaru wamaa taqa ishiisu waa mid akhlaaq wadata mid xadgudubta maaha baa ilaahay leeyahy alam nashrax laka sadrak maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa laabtiisa waa midaannu ballaadhinoo sharaxnay baa rabbi ku tilmaamaya warafacnaa laka dikrak magaciisaannu kor yeellay baa ilaahay leeyahy callamahu shadiidu alquwa jibriil baa u macallinaa ilaahay tilmaamaya wainnaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq fiican baad ku sugantay baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala marka aynu tilmaamno qur-aanka ku soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ammaantiisa ayaa ammaan ugu filan laakiin weedhahan kale waxaan u soo qaadanayay uun inta aan qur-aanka rumaysnayni ee rumaysan maqaayiis kaloo bini aadamku wax ku qiimeeyaa buu leeyey inaynu u tilmaamno bimaqaayiisikum buu nebi moxamed yahay ka mudan marka lagu eego maqaayiista bini aadamka amaa haddii loo baahan yahay nebi moxamed si dhaba loo qadariyo waxa ku filan qur'aan iyo xadiis wixii ku soo arooray walidaalik ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam
waxa uu tilmaamaya inuu yahay sayid waladu aadam waxaan ahay buu nebi maxamed leeyahay aadamba intuu dhalay sayidkoodii walaa fakhr faanna kuma jiro bale waxa uu nebigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam aakhiro liwaa'i alxamd keligii inuu shafeeco qaadi doono marka cid walaba ay isdhaafiso shafaacat alkubra inuu isagu yahay maxay liwaa'i alxamdi ka qaadi doona ee shafeeco qaadi doona nusuusta qur'aan iyo xadiidta ka badan weedh bini aadam sheegay oo dhan haddii aynu soo ururino takfiina iyada aynugu filan laakiin maadaama aad la degantihiin dad aan weli qur'aan iyo xadiid rumaynin waxaan rabaa inaan tilmaamno cayda nebi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig kuwii wax ka sheegayna waa la xidha nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl waa maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee waxgeysta malafkiisaa la baadhaayo maalinuu dhakhtar ma tegey dad buu leeyahay haa wuu waallaa beri buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terroristu ahaa hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma egto idan waa la jiifiyaana bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbeddeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaad dee ma doodi karaysee maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasuu rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu محمد يا عليه الصلاة والسلام صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.